السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعنو ونكسن داوديال كسو دوادا برنامجka Soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xiliyadan oo kale ayaad ka daawataan Haga Media waxaan alaaba ku soo qaadaa dhignaa qodobada xasaasiga ah ee gudaha dalka iyo dibaddaba qodobada caawa barnaamijka aad kaga bogan doontaan ayaa waxaa kamid ah xeer ilaalinta qaranka oo loo gacan geliyay dacwad ka dhan ah Fahad Yaasiin Kulanajiis iyo Yaasiin Faray maxaad kala socotaa in Yaasiin Faray maanta laga hor istaagay inuu tago xarunta Habar Khadiija ee Nisa maad salaad iyo fiqi oo jawaab la yaab leh siiyay madaxweyne Farmaajo talooyin muhiim ahna u soo jeediyay Cali Guudlaawe oo la yaab ku noqday guud ahaanba madaxda maamul goboleedyada kadib markii uu soo saaray musharaxiintii ugu badnaa ee kursiga aqalka sare u tartamaya sidoo kalena waxaa socda dadaal xoogan oo la doonayo in la isugu soo dhaweeyo Farmaajo iyo Roble haddii ay tahay markii ugu horeysay oo Haga Media aad soo booqatay baraheena YouTube iyo Facebook nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtaan aan naga ilaabin markasto waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu sameynayso waa habeenimo arbaco ay sii baxayso khamiis ayaa soo galaysa taariikhduse waxa ay ku beegan tahay 8 bisha September sanadka 2021 waxaynu u guda galaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena xeer ilaalinta qaranka ayaa loo gacan geliyay dacwad ka dhan ah Kulanajiis Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Faray oo madaxweyne Farmaajo uu xilal ku tahay iyadoo loo arko in uu ka difaacayo iyagoo xasaanad haysta in dhibaato ay u timaado xeer ilaalinta maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa qabatay gal dacwadeed ka dhan ah Fahad Yaasiin agaasimihii hore ee Nisa iyo taliyaha hay'adda ee gobolka Banaadir Yaasiin Faray iyo Kulanajiis qoraal ka soo baxay qareenka hooyada dhashay Ikraan ayaa lagu sheegay in dacwadan ay soo gudbiyeen qoyska iyo ehelka Ikraan Tahliil Faarax oo ay Nisa shaacisay geerideeda kadib markii ay u gacan gashay Al-Shabaab iyadoo kooxduna ay iska fogeysay arintaasi aniga oo ah qareen Daahir Maxamed Cali oo qareen u ah Maama Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax waxa xeer ilaalinta maxkamadda ciidanka qalabka sida u soo gudbinayna cabashada uu ku xusan yahay oo lid ku ah shakhsiyaadka ujeedada sare ku beegan si waafaqsan qodobka 22aad iyo 22aad ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay ninka u doodaya guud ahaanba qoyska Ikraan Tahliil Faarax warqadda oo si toos ah ugu socotay xafiiska xeer ilaalinta ayaa waxa ogeysiin la siiyay maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida waxaana lagu xusay eedeymaha saraakiisha loo haysto taasi oo u dhigneed sidan hoos ku xusan Fahad Yaasiin waa shakhsiga gabadha oo dalka dibadiisa ku maqan u yeeray una sheegay in xil loo magacaabayo mar kalena iyada oo safar u socota u sheegay in ay joogto si xil loogu magacaabo wuxuu kale oo uu sheegay in lala soo xiriiri doono si loola socodsiyo xilka loo magacaabayo soo wicitaankiisa wuxuu noqday kii gabadha lagu waayay 2 Cabdiqani Diirane oo loo yaqaan wadna qabad waa shakhsiga gabadha gaariga ku soo qaaday oo gurigeeda uga qaaday 3 Yaasiin Faray oo ah taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir waa shakhsiga gabadha loo geeyay markii gurigeeda laga soo qaaday 4 Cabdullaahi Aadan Kulanajiis waa shakhsiga dhowr jeer gabadha u soo jeediyay handadaad arintaas oo ay u sheegtay hooyadeed gal dacwadeedka loo gudbiyay xeer ilaalinta ayaa ka dhigan in si toos ah loo gudagali doono baarista kiiska Ikraan isla markaana ay saraakiishaas wajihi karaan maxkamadeen waa haddii ay ku cadaato kiiskaasi waxaa arintan aad iyo aad uga soo horjeeda madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalbaday in gabi ahaanba la baabi'iyo kiiska Ikraan isla markaana uu ogolaan doono xilka qaadistii ama shaqo ka joojintii lagu sameeyay guud ahaanba marka la eego Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo awood dawladda ku lahaa 4 sano ee aynu ka soo gudubnay tan iyo gelinkii hore ee maanta dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan ayaa waxa uu ka taagnaa qaybo kamid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan agagaarka xerada
ugu weyn ee nabad sugidda Soomaaliya ee Habar Khadiija degmada Cabdicasiisna ku taala. Xogtu waxay tilmaamaysaa in Yaasiin Farey iyo ciidan uu watay ay iska caabin wax u eg kala kulmeen ciidan daacad u ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo gacanta ku haya xarunta NISA, iyadoo ay arrintaasi keentay in Yaasiin Farey oo xalay kusimaha hay-adda NISA agaasimaheeda u magacaabay madaxweyne Farmaajo iyo ciidankiisa ay dib halkaasi uga soo laabteen. xiisad u dhaxaysa labada ciidan oo ka wada tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa laga dareemay agagaarka kilomitir 0 ilaa iyo xerada Habar Khadiijo. dhaqdhaqaaqan ciidan ee ka jira aagga isgoyska Juba oo ay ku taalo xerada NISA ayaa yimid kadib markii maanta ciidamada duufaan ee nabad sugidda Soomaaliya ay hareereeyeen ciidamo kale oo ku sugnaa xerada ugu weyn ee nabad sugidda Soomaaliya. ciidamada duufaan ayuu qorshahoodu ahaa in Yaasiin Farey oo madaxweyne Farmaajo xalay u magacaabay agaasimaha NISA inay geeyaan xafiiska ugu sareeya ee hay-adda NISA, balse waxaa la sheegay in loo diiday inuu furo xafiiska agaasimaha, laakiin uu tagay xaruntii uu markii hore ka shaqayn jiray ee isla NISA ku taala. sarkaal lagu magacaabo Maxamed Xasan oo ah taliyaha ciidanka waran ee hay-adda NISA oo ah ciidanka ilaaliya xarunta taliska ayaa diiday qorshihii Villa Soomaaliya maanta ka damacsanayd xaruntaasi, iyadoo xiisad muddo taagneed kadib ay dib u gurasho sameeyeen ciidamadii daacadda u ahaa Farmaajo iyo Yaasiin Farey. Maxamed Xasan oo ku beela ra'iisul wasaare Rooble ayaa la sheegay inuu yahay sarkaalkii hadda ka hor diiday in la weeraro Hotel Maida oo ay ku jireen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed xilligii la qabanqaabinayay banaanbax ka dhana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo kororsigiisa looga soo horjeeday. ciidanka waran ayaa lagu waramay inay si buuxda uga amar qaataan Maxamed Xasan isla markaana ay yihiin kuwa hadda haysta xarunta NISA iyaga oo taabacsan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. xaaladda weli waa ay qasan tahay, waxaa la filan karaa in isku dhacyo ay dhex maraan ciidamadan ka wada tirsan dowladda. dadka siyaasadda darsa waxa ay talooyin u soo jeedinayaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble oo waxay leeyihiin gacmo geel jira hoos ayaa loo dhaqaa, waxaana habboon in siyaasadda la wada hadlo. dadaalo ayaa socda oo xubno uu ka mid yahay Cabdiwali Ibraahim Muudey ay wadaan, laakiin dadaaladaas ayaa u muuqda inaysan shaqaynin, iyadoo madaxweyne Farmaajo uu doonayo awoodiisa inuu adeegsado halka sidaas si la mid ah Rooble uu doonayo awoodiisa inuu adeegsado. haddaba xildhibaanada ka soo jeeda Galmudug mid ka mid ahna wasiir uu yahay ee Axmed Macalin Fiqi iyo Mahad Salaad ayaa talooyin u soo jeediyay madaxweyne Farmaajo. xildhibaan Mahad Salaad iyo xildhibaanka kale Axmed Macalin Fiqi oo ah wasiirka amniga maamulka Galmudug oo ka wada tirsan golaha shacabka Soomaaliya ee muddaxileedkoodu u dhamaaday ayaa ka hadlay tallaabadii uu qaaday madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dalka gelisay xiisad siyaasadeed iyo mid dagaal. Farmaajo tani markii uu soo saaray warqadda uu Fahad Yaasiin ugu magacaabay la taliyihiisa xagga amniga qaranka, isla markaana uu ku sheegay in uu ka gudoomay istiqaalo uu soo gudbiyay Fahad, isla markaana Farey uu ugu magacaabay taliyaha NISA ee ku meel gaarka ah, waxa ay abuurtay shaki aad u xoogan oo mucaaradka ay qaadeen. xildhibaan Mahad Salaad ayaa qoraal kooban oo uu soo qoray waxa uu ku yiri 22kii bishii July ayaan qoray in Fahad Kulanajis iyo Yaasiin Farey shirko ku ahaayeen dilka Ikraan Tahliil. sida Farmaajo u xambaarsan yahay Fahad iyo Yaasiin Farey waxay marqaati fur u tahay in Farmaajo shirko ku leeyahay jariimadan. sidoo kale xildhibaanada kale ee mucaaradka ah ayaa iyaguna aragtiyo kala duwan qaba, waxaana ka mid ah xildhibaanada aragtiyadooda soo bandhigay wasiirka amniga maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo isaguna yiri ra'iisul wasaare Rooble tallaabooyin dhanka cadaaladda iyo dowladnimada ah ayuu qaaday, laakiin dhanka kale nin jeclaysi iyo cadaalad ka carar ayuu wadaa. dalkan xoog iyo anaa iri horay ayaa looga duceystay ayuu hadalkiisa ku soo koobay. madaxweyne Farmaajo lama oga tallaabada uu qaadi doono, waxaa la filayaa in beesha caalamka arrintan ay soo farageliyaan, isla markaana ay si toos ah u soo kala dhex galaan labadan mas'uul oo khilaaf xoogan uu u dhaxeeyo. haddii aynu eegno daawadayaal warbixinada kale aadka loo hadalhayo ee xasaasiga ah ee gudaha dalka Soomaaliya ku saabsan gaar ahaan caasimadda Muqdisho, maanta waxaa aad loo hadalhayay in nabad sugidda Soomaaliya lagu wareejiyay Yaasiin Farey
oo xal madaxweyne farmaajo uu magacaabay waxaana dood ay ka dhalatay sidee ayaa loogu wareejiyay maqadka zoomka ayaa lagu wareejiyay wuxuu ku sugan yahay dalka Turkiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir qoraal lagu daawacay barta Twitterka ee Nisa ayaa lagu yiri waxaa taliska nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ka dhacay munaasabad uu xilka kula wareegay taliyaha cusub ee kumeel gaarka ah ee hay'adda nabad sugidda qaranka gaashaanle sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud sidoo kale qoraalka ayaa lagu yiri waxaan alle uga rajeynaynaa inuu u fududeeyo mas'uuliyadda culus ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu eegmaday ma jirto cid xaqiijin karta xilka wareejistan Villa Soomaaliya ay ku dhawaaqday waxaana dadku ay leeyihiin sidee ayaa xilka loogu kala wareejiyay waxaaba loo magacaabay goor sii horeysay jagadan ninka lagu magacaabo Bashiir Goobe oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu magacaabay waxaana marba marka ka dambaysa si xoogeysanaya khilaafka arintan ka dhashay ugu dambeyn Cali Goodlaaw Xuseen waxa uu ka yaabsaday dhammaan madaxda maamul goboleedyada isagoo soo saaray liis dheer oo ku saabsan musharaxiinta aqalka sare ee maamulkiisa liiskan oo isha lagu hayay in Fahad Yaasiin uu kasoo dhex muuqan karo ayaan laga dhaxeelin waxaana sidoo kale kasoo dhex muuqday xubno culculus oo ugu horeeyo Senator Muuse Suudi Yelxo xubnaha uu soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ah in hal kursi ay ku wada tartami doonaan Muuse Suudi Yelxo Cabdullaahi Sheekh Xasan Axmed Xasan Caddo Xaaji Muxyidiin Xasan Afrax iyo Dr. Xasan Cadaay Cali sidoo kale xubnaha ee halkan ku xusan waxaa ka mid ah Maxamed Amiin Sheekh Cismaan Daaha Muxyidiin Sheekh Daa'uud Axmed Maxamed Cali Afcadey Yusuf Macali Xasan Filadheere iyo Dr. Cabdiraxmaan Muuse Xabad sidoo kale liiskan oo aad u dheer ayaa musharaxiin badan ay ku xusan yihiin waxaana ka mid ah Maxamed Axmed Nuur Tarsan safiirka Soomaaliya ee Kenya u qaabilsan Raaga Xasan Cismaan Xuuti Dr. Cismaan Maxamuud Maxamed Dufle Barsoor Maxamed Cismaan Dhagajoon Nuur Maxamed Geedi Canjeex Mukhtaar Xuseen Axmed Cali Shacbaan Ibrahim Cabduqaadir Xanafi Sheekh Bashiir Cabdullaahi Axmed Tawaad Caasho Xuseen Abuukar Cabdalle Cabdi Xuseen Xasan Iidow Maxamed Kobac Cismaan Axmed Macow Cabdinuur Ibraahim Nuur Fartuun Cabduqaadir Faarax Karaama Adna Xasan Mahad Cabdi Sacdiye Yarow Aadan Naciimo Ibraahim Yuusuf Maryan Maxamed Kuulow Zamzam Cabdullaahi Xuseen Maxamed Macalin Xasan Kulmiye Abuukar Xasan Cali Maqaney Cabdalla Muxyidiin Cabdalla Maxamuud Cismaan waxaana uu noqonayaa maamulka kaliya ee xilligan tartan furan qabanaya marka loo eego doorashooyinkii aqalka sare ee ka dhacay dhammaanba maamul goboleedyada barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda oo aad kala socoteen Haga Media waa naga intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga waxaan idinka tageynaa sidaa iyo nabadgelyo